ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa Mustafa Samani. Mustafa Samani waxaa laga yaabaa intiina badan inaydaan xasuusan, laakiin ninkani waa ninkii sameeyey qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam. ninkan Mustafa Samani waxa uu dhashay waddanka Iiraan. markii uu qisadaa sameynayay waxa uu yidhi waxay ahayd 1995 wixii ka dambeeyey, laakiin waxa uu yidhi waxa la igu xushay quruxdayda iyo indhahaygoo blue ahaa markaa. waxaana uu yidhi da'dayda ayaa yarayd markaa oo waan mateli karayay qisada nabiyullaahi yuusuf. waxaana uu yidhi ma aan gaadhi karin quruxdiisii qur-aanku inoo sheegay, kartidiisii faraha badnayd iyo riyadii uu samayn jiray oo ilaahay ku galaday nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam. Mustafa Samani markii la wareysanayay waxa uu yidhi markii aan iska dhigayay ama aan matelayay nabiyullaahi yuusuf qisadiisii calayhi salaam, dad badan ayaa waxay igu yidhaahdeen ma samayn karaysid, laakiin badanka waan sameeyey. laakiin waxaanan uga ekayn qaabkii nabiyullaahi yuusuf uu qurux badnaa, kartidiisii iyo wax walba uu lahaa oo ilaahay uu ku galaday. haddana waxa uu yidhi inta badan waxaan isku dayaynay inaan nabiyullaahi yuusuf iska dhigno, laakiin markaa da'dayduna way yarayd waxaana aan ahaa qof qurux badan. maanta waxa laga yaabaa in badan inaan iska beddelay qaabkii. haddana Mustafa Samani waxa uu yidhi markaan suuqa marayo dadka qaar ayaaba igu yeedhaa naanaysihii nabiyullaahi yuusuf sida wiilkii jeelka oo kale. haddana waxa uu yidhi inta badan waxaan sameeyey filmo kale oo ka duwan filmadii nabiyullaahi yuusuf oo kale. waxaana uu yidhi filmo badan oo aan ka qayb galay, dad badan ayaa waxay igu yidhaahdeen haddii aad nebi iska dhigaysay waxay ahayd inaad filmo fiican oo wanaagsan oo nebinimo ahaan oo kale aad iska dhigtid, laakiin waxa uu yidhi adoo nebi matelay inaad filmo kale ka qayb gashaa khalad ayay ahayd. si walba ha noqotee ninkan waa ninkii iska dhigay ama filinkii matelay nabiyullaahi yuusuf, magaciisana waxaa la yidhaahdaa Mustafa Samani. maanta da'diisu waxa ay ku dhowdahay 50 sano. ninkan Olafari waa nin xoog loogu yaqaano dalka Faransiiska, laakiin dhowaan waxa uu helay halka uu ka soo jeedo iyo cidda uu yahay. waxa uu yidhi markii la wareysanayay anigu waxaan ku koray biyo meelaha carruurta lagu xanaaneeyo, laakiin waxa uu yidhi waxay qaatay qoys ama family caddaan ah oo Faransiis ah. laakiin markii aan arkay inaan ahay qof madow ah ayaa waxay igu kaliftay inaan ogaado halka aan ka soo jeedo asliyan, maadaama aanan ahayn nin caddaan ah. laakiin dad badan ayaa waxay ugu odhan jireen iska dhal baa tahay Faransiis iyo Afrikaan. ilaa markii dambe aan tegay dhakhtarkii aan ku dhashay iyo halkii laga soo qaaday markii la keenayay xanaanada laygu korinayay. waxaana aan ogaaday oo dhakhtarkii ka helay wax iga yaabiyey. waxaan ogaaday inay iska ka dhashay hooyo Soomaaliyeed oo ka timid dalka Djibouti iyo weliba aabe Itoobiya ka yimi oo labaduba ay Faransiiska ku kulmeen. waxa uu yidhi waxyaabaha la yaab kale aan arkay waxaa ka mid ahayd in hooyaday ay da'deedu yarayd oo ay ahayd 15 sano, hooyadayna ay Soomaaliyad ahayd. waan ka naxay buu yidhi markaan arkay 15 sano qof ahi inaan anigu ka dhashay ama aniga ay dhashay. waxa uu yidhi maadaama ay hooyaday Soomaaliyeed tahay, maanta waxaan ogaaday inaan ka soo jeedo Afrika, weliba 2 waddan oo jaar ah oo Itoobiya iyo Soomaaliya ah. Beniketi ayaa la yiraahdaa magaciisa, laakiin waxa uu guursaday 4 sanona uu qabay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Aamina, waana gabadhan la sawiran. ninkani markii uu gabadhan 4 sano qabay waxa uu ka dhalay 2 caruur ah. iyagii 2 caruur isku leh ayuu dhawaan furay, waxaana uu shaaciyay inuu gabadha Soomaaliyeed uu iska furay. laakiin ninkani wuxuu haystay diinta Kiristaanka, iyaduna waxay tiri waxaan ahay gabadh Muslim ah oo Soomaaliyeed. markii Instagram-keeda soo dhigaysay waxay ka hadlaysay sida ay isku fureen iyo waxa uu uga tagay. waxyaabo la yaab kale waxay tiri markii jirkayga uu weynaaday ee aan naaxay ayuu ninkayga nacay, waxaana uu igu yidhi kuma rabo ee iga tag, uuna i furay. waxay tiri waxyaabahan ka qoomamaya waxa ka mid ah markii hore inaan u galay aan khaldamay oo nin Kristaan ah anoo Muslima oo weliba gabadha aan guursaday. waxay tiri waxyaabahan ka tallaabsaday ayaa ka mid ahay diintaydu. waxay tiri khalad weyn ayaan ka galay diinta Islaamka iyo Soomaalinimada labadaba. waxay tiri haddii markii aan ogaan lahaa ama aan ku adkaysan lahaa go'aankaygii ahayd inaanay gabadha guursanin gaal ah, maanta kamaan qoobameeyeen. laakiin maanta waxaa laalmay bay tiri aayahaygii dambe oo nin gaala intuu ii guursaday
2 caruur iga dhalay weliba haddii wax igu furi lahaa uu igu yidhi waad naaxday waa la yaab waxa uu ka baxay bay tiri ballantii aan isku ogeyn waxana uu ka baxay wax walba oo nolosheeda ku saabsan laakiin maanta waan ka soo kabanayaa dhibtii oo dhan ninkan ayaa saxaafadda dalka Kenya ay qaadaadhigaysa warkooda inta badan sanadkii ugu dambeeyay waxaana laga wada sheekaysanayay labadan qof ninkan caanka ah ee wariyaha ah iyo gabadha Soomaaliyeed ee Aamina Nuudow lagu magacaabo gabadhan yari mar la wareysanayay waxay tiri waxaan ahay guri la'aan waxaana aan ku noolahay dalka Canada waxay tiri intii aan guri la'aanta ahaa waxyaabo la yaab leh ayaan la kulmay oo ay ku ka tahay dhaxantan faraha badan waayo waxay tiri intii aan guriga ku jiray maana aqoon in dhaxantu sidan u badan tahay waayo waxaan haystay kuleeliyayaal iyo qalab baan isticmaali jiray laakiin markii aan dabadda u soo baxay wax badan ayaa iska kay bedelay waayo waxay tiri noloshu sidaad moodin maaha waxay tiri haddaad u baahan tahay inaad noloshu ogaatid waa inaad marka hore gaajootaa waa inaad bilaa guri noqotaa waa in xaaladaadu isbedeshaa wax walba waa inaad iska xidhaa waayo waxay tiri maan ogeyn markii hore in dhaxantan sidan u daran ay jirtay laakiin maanta waxaan ogaaday bay tiri markii aan dabadda u soo baxay in dadka badankooda ay dabadda ku nool yihiin waayo waxay tiri dadka guri la'aanta ah badankooda ama Mareykan ha ku noolaadaan ama Afrika ha ku noolaadaan ama qaaradaha kale ha ku noolaadaan nolosha noocan u xun ayay ku nool yihiin laakiin ugu yaraan noloshu waxbaan ka bartay maadaama intaan dabadda u soo baxay oo aan guri la'aan maanta ahay oo aan dayacanahay haddana waxaan ogaaday bay tiri in dad badan oo noocaanihi ay jiraan laakiin markii hore maan ogeyn waxay tiri qof walba oo u baahan inuu nolosha wax ka bartaa waa inuu inteeda dayacan tagaa ama waa inuu gaajoodaa ama waa inuu cuntada iska xidhaa ama waa inuu dabadda seexdaa ama waa inuu ogaadaa in lacag la'aantu xataa ay dhibaato badan tahay maanta waxay tiri waxaan ogaaday anoo sidan u qurux badan in wax badan aan waayay oo ay koow ka tahay guri la'aanta waayo waxay tiri gurigu waa hooy cajiib ah oo dadku aanay fahansanayn nimcadiisa laakiin markaad dabadda u soo baxdid ayaad wax badan dareemi doontaa waxyaabaha la yaab kale marka haddii aad imika u baahan tahay inaad wax ka baratid nolosha waa inaad nolosha inteeda hooseysa aad tagtaa si aad u ogaatid in halkan ay dad ku nool yihiin oo aanay bahalla ku noolayn una adkaystaan maalin walba dhibtan aad maanta ka cabanaysid la yaab